mid ka mid a calaamadaha ugu waaweyn ee ka horeeya qiyaamaha waa soo bixidda qoom la yidhaahdo ya'juuj iyo ma'juuj. dadkan ayaa inagula nool adduunka korkiisa. meesha ay ku jiraan waxaa lagu xayndaabay oo lagu wareejiyey derbi dheer oo ka samaysan bir iyo nuxaas. maalin kastana waxay waaberiga hore u jarmaadaan si ay derbigaasi u jabiyaan ugana soo baxaan, laakiin marka uu gabalku dhaco ayay iska noqdaan iyaga oo aan gaarin yoolkoodii. ma jirto cid weli gaartay gidaarkan. diyaaradaha horumarsan ee uu aadamuhu sameeyey iyo sidoo kaleba sataladyada dul dawaafaya adduunkan awood uma yeelan inay muuqaallo ama sawirro ka qaadaan meesha ay dadkani ku jiraan. laakiin waxaa jirta dhacdo caan ah oo ay soo wariyaan taarikhyahanadii islaamka, badanaana ay ka soo xigtaan taarikhyahanada Yurub, oo ah in mid ka mid ah howlwadannadii khaliifkii muslimiinta ee la odhan jiray Haaruun al-Waathiq uu safar qaatay ku dhowaad 2 sano ku gaaray derbigan, kana faalooday qaabka uu ahaa iyo xaaladda uu xilligaasi ku sugnaa. haddaba sidee ku gaaray ninkani? maxay tahay dhacdada keentay inuu safarkan dheer galo? xageese ku sheegay inuu derbigani ku yaalo? su'aalahan iyo kuwo kaleba ayaynu ku lafaguri doonnaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. kusoo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta aynan u gelin sheekada ninkan gaaray derbiga ya'juuj iyo ma'juuj ay ku xiran yihiin iyo dhacdooyinka la yaabka leh ee uu ku soo arkay, aynu marka hore isla eegno waxa ay yihiin dadkani, qaabka uu yahay jirkoodu, iyo waxa keentay in derbigan lagu xayndaabo deegaankooda. ya'juuj iyo ma'juuj waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad indhayar ah oo waxay dadka diraaseeya ku sheegaan inay isku isir yihiin dadkan indhayarta ee degay Aasiya iyo sidoo kale Turkida. waxaana lagu tuhmaa in deegaanka ay ku jiraan dadkani uu yahay isla deegaan ku yaala agagaarka dalalkan, sidaynu ku arki doonno dhacdada uu muuqaalkeenna maanta ku socdo. sifooyinka dadkan ayaa lagu tilmaamay inay yihiin dad san gaagaaban, midabka timahoodu uu yahay hurdi iyo madow isku jira, wejigoodu ballaaran yahay. dherarkooda ayaa lagu sheegay inay yihiin dad gaagaaban. waa dad aad u tarma, waxaana la sheegaa in midkoodba intaanu dhiman uu ka tago duriyaddiisa oo gaadhay ku dhowaad 1,000 qof. waa dad kharibaad iyo foodo u samaysan. wixii ay ishoodu qabato cagta sii marinaya. inkastoo ay gaagaaban yihiin, haddana waa dad xoog waaweyn oo aysan cidna iska dhicin karin. sida uu Alle subxaanahu wa tacaala uga warramay suuratulkahfi, dulqarnayn oo ka mid ahaa boqorradii 4 ahaa ee xukumay adduunkan oo dhan, ayaa isaga oo socdaal uu dunida ku marayo ku jira waxa uu la kulmay qoom ama dad aan hadalkooda la fahmayn oo af adag, kuwaasi oo kaga dacwooday ya'juuj iyo ma'juuj oo ay ku tilmaameen inay yihiin dad dhulka fasahaadinaya. waxayna ka codsadeen inuu u dhiso xayndaab uu ku oodo qoomkan dhibka badan si ay uga nabadgalaan. dulqarnayn ayaa aqbalay codsigooda, wuxuuna dhisay derbi weyn oo ka samaysan bir iyo nuxaas oo uu ku daboolay halkii ay ka soo bixi jireen ya'juuj iyo ma'juuj. wuxuuna u sheegay in xayndaabkani uu yahay naxariista Alle uu kaga horjoogo fasahaadka qoomkan. wuxuuna ugu sii daray in maalin maalmaha ka mid ah uu Ilaahay xayndaabkan ama derbigan uu dhulka la simi doono, ya'juuj iyo ma'juujna ay soo bixi doonaan. ya'juuj iyo ma'juuj maalin kasta oo ay qorraxdu soo baxdo waxay qodaan gidaarkan xayndaabka ku ah meesha ay ku jiraan si ay dunida inteeda kale ugu baahaan, laakiin kuma guulaystaan yoolkoodan. oo sida uu sheegay nebigu, naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee, waxay qodaan godkan maalin kasta ilaa laga soo gaarayo qoraxdhaca, iyaguna ay arkaan iftiinka qorraxda. markaasi ayaa lagu dhahaa noqda, beri ayaad dhammaystiri doontaan inta idiin hadhay. maalinta xigta marka ay subaxii soo noqdaan ayay u yimaadaan derbigii oo sidiisii hore kaba adag. markaasi ayay dib u soo bilaabaan jabintiisa. waxay maalin kasta xaalkan ku jiraan. waxaa dhacaysa in maalin uu dhaho kii amrayey, noqda, beri ayaad dhammaystiraysaan. wuxuuna markan raacinayaa inshaa Allah. waxay soo noqonayaan aroortii kale iyada oo uu gidaarkii meeshii ay shalay uga tegeen joogo. way dhammaystirayaan wayna soo baxayaan. waxay ka soo degayaan jiho saraysa. kooxda ugu horaysa ayaa soo maraysa harada la yidhaahdo Dabariya ama Tibriis, waxayna cabbayaan dhammaan biyihii ku jiray haradaasi. kadibna kooxda ugu dambaysa ayaa marka ay marayaan isla haradan waxay dhahayaan xilli ka mid a xilliyada haradan waxa ku jiri jiray biyo, taasi oo ku tusinaysa sida ay u tirada badan yihiin, sidoo kalena ay u badan yihiin oo wixii ay arkaanba aysan kooxba kooxda ka dambaysa waxba u sii reebayn. waxay cagta sii marinayaan wax kasta oo ay ishoodu qabato, dad iyo dunyaba. dadku
waxay gelayaan dhufaysyo si ay naftooda ula baxsadaan. marka ay wax kasta oo ay arkaan dilaan ama cunaan ayay marka dambe cirka u tuurayaan leebab. kadibna leebabkii ay tuureen ayaa u soo noqonaya iyagoo dhiig leh. markaasay dhahayaan, waan ka adkaanay dadkii dhulka joogay iyo ciddii cirka joogtayba. xilligaasi waxaa jooga dhulka nebi ciise calayhi salaam. kadibna isaga iyo inta la socota ayaa fuulaya buur. waxay baryayaan ilaahay inuu ka qabto qoomkan aan waxba reebayn. alle subxaanahu wa tacaala ayaa u soo diraya mid ka mid a ciidankiisa kuwa ugu yaryar. waxaa loo soo dirayaa cayayaan yaryar oo sanka iyo dhegaha ka gala oo dhammaantood wada dili doona. xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay haaruun alwaathiq oo ahayd xilligii cabbaasiyiinta ayaa waxa dhacday in habeennada ka mid ah isaga oo hurda uu hal mar si kadis ah hurdadii uga kacay isagoo uu argagaxsan. wuxuu sheegay inuu ku riyooday iyada oo uu furmayo xayndaabkii ya'juuj iyo ma'juuj. wuxuu amray in la diyaariyo rag sahan taga oo ka war doona xaalka uu ku sugan yahay xayndaabkaasi. taliyihii ciidankii cabbaasiyiinta oo la odhan jiray ashnaash al turki ayaa u sheegay khaliifka inuu jiro nin turjumaan ah oo ka shaqeeya dowladda lana yidhaahdo salaam al turjumaan. wuxuu sheegay inuu yaqaano 30 luqadood awoodna u leeyahay in maadaama dhulal badan la marayo oo ay dadka dega ku hadlaan luqado kala duwan inuu isagu hawshaasi qabto. waa loogu yeeray ninkii. kadibna wuxuu amray inuu ka war doono xaalka uu ku sugan yahay derbiga ya'juuj iyo ma'juuj ay ku xiran yihiin. wuxuu ku daray 50 nin oo ku weheliya safarka. wuxuu siiyey 5,000 oo diinaar. sidoo kale wuxuu bixiyey diyadiisa oo gaaraysay 10,000 oo dirham haddii uu lacalla waddada ku dhinto. sidoo kale 50kii nin ee uu ku daray ayuu mid kasta siiyey 1,000 dirham. sidoo kale waxaa loo hormariyey mushaarkoodii ay qaadan lahaayeen muddo sannad ah. kadibna waxaa u bilowday safar dheer. ninkii la odhanayay salaam al turjumaan iyo 50kii nin ee ku weheliyey safarka ayaa ka baxay magaalada saamiraa oo ahayd caasimadda kumeelgaarka ah ee cabbaasiyiinta. waxay u jihaysteen armeniya oo xilligaasi ahayd qayb ka tirsan dowladdii cabbaasiyiinta. waxay gaareen caasimaddeedii oo ahayd magaalada tiblisi oo ah maanta caasimadda georgiya. markii ay u tageen waaligii armeniya u fadhiyey dowladdii muslimiinta una sheegeen howlgalka loo soo diray, wuxuu fariimo u qoray boqorradii ka talinayay dhulalkii qowqaas, koonfurta ruushka iyo sidoo kale boqortooyadii la odhan jiray khasar. markii ay raggani soo gaareen boqortooyadan khasar ayay ku hakadeen habeen iyo maalin. kadibna boqorkii khasar ayaa ku daray 5 nin oo hagayaal ah waddadana tusa. waxay u jihaysteen dhanka bari waqooyiga badda qaswiin. waxay socdeen 26 maalmood ka hor intaysan soo gaarin dhul uu midabkiisa madow noqday ur saa'id ahna leh. kadibna dhulkan ayay ka sii socdeen 10 maalmood. waxay soo gaareen mar kale deegaanno dhan oo la kharribay lana baabi'iyey. way sii wateen safarkoodii oo mar kale waxay sii socdeen 20 maalmood ilaa ugu dambayn ay soo gaareen magaalo la yidhaahdo aykah. magaaladan ayaa lahayd beero. waxayna sheegeen in beerahani ay ahaayeen beeraha ay degi jireen dulqarnayn iyo ciidankiisu. waxayna u jirtaa xayndaabka ya'juuj iyo ma'juuj 3 maalmood. waa sida ay sheegeen. waxay sheegeen in meeshan ay ku taallo buur dheer oo sida silsilad oo kale ah, taasi oo u samaysan qaab wareeg ah. wuxuu sheegay in derbiga uu sameeyey dulqarnayn uu ku yaalo 2 buurood dhexdood oo ah afaafka burtan. sidoo kalena ay ka dambayso labadaasi buurood buurtii silsiladda ahayd ee aynu soo sheegnay inay sida goobaabinta u samaysan tahay. isagoo oo sifeynaya qaabka uu u yaalo ayuu sheegay in dulqarnayn uu awood u yeeshay inuu 2 buurood ka dhex sameeyo derbi shub ah oo kale. shubkan ayuu ka sameeyey dhagax ka samaysan nuxaas iyo bir la isku dhalaaliyey. kadibna wuxuu dusha ugu saraysa kaga dahaaray bir la dhalaaliyey si aysan u dhicin in sahal lagu jabiyo. kadibna shubkan ayaa noqday sida inuu ku samaysan yahay 2 buurood ee laga dhex sameeyey oo isaga iyo buuraha lama kala saari karo ama lama kala garan karo. dherarkiisa ayuu ku sheegay inuu gaarayo 120 dhudhun oo noqonaysa 55 mitir. wuxuu sheegay in xayndaabkan ay gaar ka hayeen oo ay waardiyeynayeen rag uu u xilsaaray boqorkii ka talin jiray deegaankan. raggan waardiyaha haya ayuu sheegay inay haystaan dubbo weyn oo ay ku garaaci jireen maalintii 3 jeer shubkan birta ka samaysan si ay u dhagaystaan in uu dhawaq ka jiro derbigan gadaashiisa. 3 jeer ee ay qaraaci jireen shubkan ayaa ahayd subaxii hore. marka ay ku dhuftaan ayay maqli jireen dhawaq sareeya oo ka soo yeeraya shubkan birta iyo nuxaasta ka samaysan gadaashiisa. kadibna duhurkii
ayay mar kale ku celin jireen. waxay mar kale maqli jireen dhawaq iyo guux ka daran kii ay maqleen subaxii hore. sidaasi oo kale casarkii ayay mar saddexaad ku dhufan jireen. yoolka laga lahaa in raggan waardiyaha haya ay dubbahan weyn ee ay sitaan ay ku dhuftaan gidaarkan ayaa ahayd si ay u hubsadaan inaysan dadkani dhaawac u geysan ama aysan jebin xayndaabka ama gidaarka shubka ah ee ay ku jiraan, si lacalla haddii ay jebiyeen ay u wargeliyaan boqorkii u talin jiray, naftoodana ula baxsadaan. salaam al-turjumaan ayaa sheegay in uu raggan waardiyaha hayay uu weydiiyey inay ku arkeen wax dilaac ah ama burbur ah gidaarkan. waxay ku jawaabeen maya, oo waxaa jira daloolkaasi yar oo keliya, iyagoo farta ugu fiiqay jabniin aad u yar oo soo gaaray birta shubka ah ee uu xayndaabkani ka samaysan yahay. kadib mindi yar oo uu sitay ayuu inta ku xoqay birtii shubka ka samaysnayd, kadibna xoqniinkii ka soo daatay ku qaatay mara yar oo uu sitay. wuxuuna sidaasi ku soo gebagabeeyey safarkiisii, dibna ugu noqday Ciraaq si uu khaliifkii ugu celiyo war, uguna geeyo xoqniinkii birta ee uu soo qaaday. safarkoodu wuxuu ku qaatay 16 bilood oo sii socod ah iyo 12 bilood oo soo noqosho ah. dhulka ay ku nool yihiin Yaajuuj iyo Maajuuj, sidoo kalena uu ka samaysan yahay gidaarkan, ayaa lagu sheegay inuu ku yaalo dalka Qirgistaan, gaar ahaanna xuduudda u dhaxaysa dalkan iyo dalka Usbakistan. qoraaga la yidhaahdo Cabdilaahi Sharbaji ayaa ku sheegay kitaab uu cinwaan uga dhigay safarkii Dulqarnayn uu ku maray bariga in gidaarka ay ku jiraan Yaajuuj iyo Maajuuj uu ku yaalo deegaan dhaca galbeedka Qirgistaan iyo bariga dalka Usbakistan, dhul beeraley ah oo dhacda xuduudda labadan dal. deegaankan ayaa waxaa degan shucubta asalkoodu Turkida yahay ee loo yaqaano Qirgiska, Turkumaanka iyo Igoorka.